kulantii habboon idil ahaantiin badda wadayaal meel weliba waad ka joogtaan dafaha caalamka halkan waa raatan t v qodobada wararkeena ugu duuruna waxaa qayb ka noqonaya cabdirashiid janan iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ka heshiiyey guud ahaanba qadiyada gobolka gedo iyo weji cusub oo markaasi lagu wajahayo xaalada jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya macluumaad urursan oo ku geedaaman xaaladaasi ayaanu idinla wadaagi doonaa waxyaabaha kale aad daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda maamulada mucaaradkaahi ayaa waxa ay madal uga dhawaaqi doonaan dhowaan gudaha magaalada Garowe ee caasimada Puntland macluumaad kooban oo umurtaasi ku saabsanna waan idin soo baahin doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan daawada haday tahay markaaga kugu horeysay aad soo boqoto halkan subscribe noo saar noona la garay muuqaalkan waad ku maasan tahay soo boqoshadaada aanu ku hormarno wararka laga helayo villa Soomaaliya waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan in kulan albaabada u xiran yahay oo saacadihii ugu dambeeyay u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre iyo taliyaha nabad sugidda Jubbaland ay magacowday dowladda dhexe cabdirashiid janan in ay ka arrinsanayeen xaaladda guud ee gobolka iyo sida laga yeelayo xaaladaha murugaysan ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray gobolkaasi Gedo waxaa la tilmaamayaa hadda xaaladu in ay meel wanaagsan marinayaan isla markaana garabyadu ay ku heshiiyeen guud ahaanba in loo bambaxo meel ka wanaagsan meesha hadda la joogo ee ah in guud ahaanba laga guuro qalalaasaha iyo dhibaatooyinka gobolka ka oogan ee markaasi sababay gacanka hadal dhex mara ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya janan waxa ay u soo jeedisay in guud ahaanba laga guuro nidaamka ay dowladdu doonaysay ee ah in guud ahaanba maamul aanan ahayn kan Jubbaland laga yagleelo gudaha Garbaharey waxaana la tilmaamayaa in talaabadaasi guud ahaanba garabyadu ay ku heshiiyeen in meeshaasi lagu ekeeyo janan waxaa la tilmaamayaa in soo jeedinadana dhowr ah uu ku darsaday dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha gaar ahaan ra'iisul wasaaruhu markaasi la fariistay in muhiim ay tahay bulshada deegaanku in ayahoodu ay ka tashtaan isla markaana aysan maangal ahayn inay hoos tagaan maamulka madoobe waxaa la tilmaamayaa in garabyadu tallaabadaasi ay isku mari waayeen balse markii dambe la isla qaatay in guud ahaanba laga heshiiyo xaaladda gobolka isla markaana si hoose ay u fiiriso dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa tani inay timid ka gadaal markii dhowaan wada hadallo dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay fashilmeen ka gadaal markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degay gudaha magaalada Kismaayo halkaasina uu kula kulmay madaxweynaha deegaanada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ay dowladdu diidan tahay dib u doorashadiisu waxaa la tilmaamayaa hadda in ay dowladdu oogayso qorshe kale oo markaasi ku aadan nidaamka lagu wajahayo wada hadallada isla markaana waxay abuuraysaa dowladdu jawi nabdoon oo markaasi lagu geli kara guud ahaanba wada hadallo isla markaana lagu abuuri karo sheeka ubucdeedu ay tahay guud ahaanba in laga tanaasulo garabyadu waxyaabaha ay tabanayaan waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda garab weliba uu isagu arrintiisa si gooni ah uga wada hadlayo kadibna la isugu imaanayo miiska wada hadalka si xal waara looga gaaro qadiyada Jubbaland ee muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda iyo maamulka madoobe ay isku hayeen waxaa la tilmaamayaa janan iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre kulamadii dhex maray inuu ku weelinayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo ee dowladda dhexe dhankeeda ka socda Cabdullaahi Shimbir waxaana la tilmaamayaa in garabyadu ay isla garteen guud ahaanba in la sii ambaqaado wada xaajoodiyada ku qotoma xal u helidda xaaladda ka oogan gobolka Gedo waxaana la tilmaamayaa in janan uu soo jeediyey in dowladdu ay fariisin ka dhigato magaalada Doolow halkaasina loo guuro taasina waxaa la tilmaamayaa in ay tahay arrin kale oo markaasi dagaal oogi karta maadaama halkaasi ay ku sugan yihiin maamulka uu hogaamiyo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdi Lafay oo ah gudoomiyaha degmada Doolow isla markaana garabka Jubbaland jira
waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ee dhinaca Jubbaland Macalimo waxaana dhammaantood ay diyaar u yihiin guud ahaanba inay hakiyaan tallaabo waliba oo ka imanaysa dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu faragelinayo gudaha magaalada Doolo waxaa soo muuqanaysa tallaabadaasi in dowladdu ay ka gaabsatay isla markaana ra-iisul wasaaraha xukuumaddu uu sheegay inaanan loo qaataynahayn tallaabadaasi ayna jirto kuwa kale oo ka wanaagsan isla markaana fursad u abuuri kara bulshada ku dhaqan gobolkaasi Gedo isla markaana jawi nabdoon kusoo idlaan kara waxaana la tilmaamayaa in garabyadu tallaabadaasi ay ku heshiiyeen isla markaana si wanaagsan ay isula meel dhigeen dowladda federaalku ma doonaysa in mar kale ay ku xaliso xaaladda gobolka Gedo iyo guud ahaanba Jubbaland in qori caaradii ay ku wajahdo waxay doonaysaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado si xal waara looga gaaro waxaana la tilmaamayaa in Jubbaland ay haysato garabyo siyaasadeed oo culus oo arrimaha dibadda ama beesha caalamka sida dowladaha dariska Ethiopia iyo Kenya iyo isutaga Imaaraadka Carabta kuwaasi oo dhammaantood ka caawinaya qorshaha ay Jubbaland ku doonaysa inay ku hakiso qorshaha lagu dhisayo maamulka New Jubbaland oo dowladda dhexe ee Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay ay si weyn uga shaqeynayso qorshaha dhismaha maamulkaasi walow hadda dowladdu ay ka gaabsatay isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya mar arrintaasi wax laga weydiiyay iyadoo qudheedu ay sheegtay inaysan jirin wax la yiraahdo dhismaha maamul la yiraahdo New Jubbaland isla markaana aysan arrintaasi ahayn mid sax waxay u muuqanaysaa guud ahaanba arrintaasi inay ahayd mid ay wadeen garabyo siyaasadeed hase ahaatee dowladda dhexe iyadoo qudheedu wax badan bay ka ogtahay dhismaha maamulkaasi waxaana la doonayay in Cabdirashiid Janan iyo saaxiibadii lagu howlgeliyo isla markaana ay gobolka inta ugu badan soo dhiciyaan ka gadaalna ay arrintu noqoto mid waji kala loo yeela waxaa la tilmaamayaa hadda inay noqotay sida markaasi la saadaalinayay isla markaana Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay isugu tagayaan miiska wada hadalka isla markaana waxaa la joojinayaa wax waliba oo xanaf ka beeri kara guud ahaanba wada hadallada la kala dhexdhigayo Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya garba kale ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in ay maangal tahay in ay arrintan hormuud u yihiin isla markaana ay wada xaajoodkan hormuud u yihiin dowladaha dariska Kenya iyo Ethiopia oo iyagu dhexdhexaadinaya waxaana la tilmaamayaa in la isugu tagayo magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya si loo abuuro jawi nabdoon oo markaasi guud ahaanba garabyadu ay ku wada hadli karaan kulamada ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyana waxaa la tilmaamayaa inay gogol xaar u yihiin kuwaasi isla markaana ka dhici doona magaalada Nairobi wufuud labada garab ka socota ayaana ugu horeyntii waxaa la tilmaamayaa inay isku arki doonaan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya si markaasi loo sii ambaqaado wajiga koobaad ee wada hadalladaas isla markaana garabyadu si hor u dhici ay soo horarkaan waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabooyinkaasi ay noqon doonaan kuwa laga miro dhaliyo wixii macluumaad oo ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markana mucaaradka wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in mucaaradku ay qaadayaan tallaabooyin culus oo ay ku dhisayaan guud ahaanba madal mucaarad ka gadaal shirar aan kala joogsi lahayn oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya iyo kuwa qaab online markaasi u dhexmaray xubnaha mucaaradka oo ay iyagu ka arrinsanayeen guud ahaanba dhismaha mucaarad micno leh oo ay yeelanayaan xubnaha mucaaradka waxaa la tilmaamayaa in madashan ay isugu yimaanayaan mucaaradkii ugu badnaa farmaajo xubno kale oo mucaarada oo ay ka mid yihiin Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo saraakiil kale ayaa la tilmaamayaa in dhammaantood ay tagayaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland sidoo kale waxaa qayb ka ah qorshahaasi madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu tallaabadan hormuud u ah waxaana la tilmaamayaa in gogashan uu dhigay madaxweynaha Jubbaland aan iraahdo madaxweynaha Puntland ninka lagu magacaabo Saciid Cabdilaahi Dani kaasi oo uga dhawaaqaya magaalada Garowe caasimadda Puntland in ay yeelanayaan mucaaradka guud ahaanba madal ay ku midaysan yihiin isla markaana lagu gorfeynayo guud ahaanba xaaladaha siyaasadeed ee murugaysan ee ka jira gudaha dalka iyo sidii markaasi looga arrinsan lahaa
waxyaabaha markaasi ay isku mari laayihiin dowladda dhexe iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka, wax ka bedelka dastuurka iyo dagaalka argagixisada. waxaana la tilmaamayaa in dhammaantood garabyadu ay isku mari waayeen. hadda waxaa la tilmaamayaa in la abuurayo jawi kale oo ay mucaaradka ku muujinayaan dareenkooda ku aadan siday u diidan yihiin in doorasho aanan loo idlayn ay ka qabsoonto gudaha caasimada muqdisho, iyadoo dowladdu ay doonaysa bishan soddonkeeda inay ka qabato gudaha magaalada muqdisho doorashada golaha deegaanka ee magaalada caasimada ee muqdisho. waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkaasi ay si weyn u diidan yihiin mucaaradka, islamarkaana ay doonayaan inay ka hor yimaadaan, islamarkaana ay ganafka ku dhuftaan. wixii macluumaada oo arrintaasi kusoo kordha wararkeena dambe ayaan idinkugu soo baahin doonaa. tan iyo kulan dambe, nabadeen.